waa laf-dhabarta Soomaaliyeed waa dadka ugu muhiimsan Soomaalida oo dhinac walba galaya oo loo baahan yahay mar walba in ay bulshada wax u qabtaan doorka siyaasadda waa loo baahan yahay inay ka qayb qaataan haweenku doorashada dumarka qoondada ay ku leeyihiin 2021 in badanna waa laga soo hadlay sida awgeed waxaan u arkaa waxyaabo badan inay dawo ka tahay in loo ilaaliyo lana siiyo boqolkiiba 30 ay ka yihiin bulshada Soomaaliyeed annagu haddaanu nahay dhaqankii Soomaaliyeed haddaan nahay gabdhuhu waxay naga mudan yihiin sharaf waan qiimeynaa waan tixgelinaa karaamo badan baan u haynaa waxaan u haynaa xuquuqda ay leeyihiin inaanu mar walba aanu siino marka mudnaan iyo sharaf iyo tixgelin bay naga mudan yihiin gabdhaha Soomaaliyeed waxaan u soo jeedinayaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin waa idin garab taagannahay qaybaha idinku aadan ee idinka dumar ahaan xaggiina soo jira in aad arinta iyada ka dadaashaan tixgelisaan cadaaladana aad haddii Ilaahay yiraahdo u badnaataan oo cadaaladda maartay aad mar walba ay cadaaladda ilaalisaan wixii uu raggu haleeyana inay iyagu toosiyaan oo ay ragga waaniyaan waayo ragga mid ay u dhaxeen iyo mid ay dhaleen iyo mid ay haddii Ilaahay yiraahdo ay la dhasheen weeyaan marka kama dhaxmarna gabdhuhu mar walba raggii taladii bay leeyihiin